waayahay ninkan ila dhageysta waa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni kadibna madaxweyne kale aan isbarbar dhigi doonaa inaan ogolaado wada hadal waxaan anna shardi ka dhigay inay meel fagaara aan noqoto aan doodeedu ku dhiiban karo oo qol cidla la isla gelin markii la iga aqbala dhinaci kale waa diideen hadda cidda wax diidaysa mar walba inay khaldan tahay maanta waa cadda annagu waxaan diyaar u nahay mar labaad dood cad oo sharci ku dhisan oo fagaara ah dadka reer Jubbaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wada hadal maan diyaar u nahay dawladda kale ha ku wareegay waxaan filayaa labadaba inaad markaasi ka bogatay waa madaxweynaha maamulka markaasi Puntland iyo waliba sidoo kale Jubbaland su'aasha meesha ka jirta isweydiinta ah misana markaasi la isweydiin ama bulshadu isweydiinayaan ayaa ah maxaa isku soo beeqaamiyay misana isku khudbad ka dhigay ama markaasi isku hadal ka dhigay wada madaxweyne maxay tahay xogta taasi ayaan rabaa in halkan kugula wadaago fadlan daawada haddii ay tahay markii ugu horreysay ku soo gaaro muuqaalka fadlan like garow share garee meel dheer nal gaarsiin qaybta hoose faalada commentiga ayaad inagu wadaagi kartaan way soo dhawaada saaxiibayaal madaxda maamul goboleedyada ee dalka markii ay rabaan ama markaasi ay qorsheynayaan inay markaasi ay qabsadaan doorashooyin ama markaasi doorashooyin iyagu ay u madax banaan yihiin waxay si qalifsan misana adag ay markaasi go'aan ugu gaaraan inay isku caanashubaan doorashooyinka iyagu ay qabanayaan daraatoole misana sanad ka hor madaxweynaha Puntland ayaa ahaa inta badan dawladda meelaha ama fagaarooyinka ay ugu la hadlaysay ayna markaasi ka dalbanaysay inuusan qabsanaynin doorasho laakiin markuu qabsaday kadib maxaa dhacay munaasabadooyin iyo waliba kulamo kadib waxa madaxweynuhu go'aan uu ku gaaray inuu mar kale isagoo stage uu saaran uu dhaho waxaan diyaar u nahay inaan markaasi wada hadal la yeelano dawladda federaalka ee Soomaaliya su'aal ayaa wali ka taagan halkaasi haddana bilooyin kadib maamulka Jubbaland ayaa shirka golaha wada tashiga qaran ee markaasi isna markaasi ka baxay isagoona markaasi ka xun ama ka carooday doorashada qof codka ah ee uu markaasi dalka aadayo muddooyin ayaa la barbariyay muddooyin ayaana waan lagu waday muddooyin ayaana markaasi la daba taaganaa laakiin waxba waa laga qaban kari waayay oo walibana wuxuu ku adkaystay misna go'aan uu ku gaaray inuu doorashadiisa u qabsado bal ilaa maalinkuu qabsaday doorashada isla hadalkii madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu ku dhawaaqay ee ahaa inuu markaasi qabsanayo markaasi uu diyaar u yahay inuu la galo wada hadal dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa isna stage la soo fuulay oo walibana marka dhacday doorashada munaasabada iyo waliba sidoo kale dhaarinta intooda markay wada raaceen ayuu wuxuu yiri waxaan ahay Soomaali waxaan diyaar u ahay inaan dawladda Soomaaliya wada hadal la galo waa inta badan su'aalaha adag ee taagan waqtigan la joogay kuna aadan maamulada dalka ma sadhici doontaa maamul kale isaguna sida oo kale intuu uu soo qalafiyo inuu qabsado doorasho haddana markaasi go'aan sidan oo kale isna meel la soo istaagi doono waana su'aalaha ugu badan ee dadweynuhu maanta isweydiinayaan kuna aadan waqtigan la joogay inay markaasi caqabado ay ku noqon karto horumarka iyo waliba sidoo kale dib u kabashada dawladda ee federaalka ee Soomaaliya akhliga muwaadinka iyo waliba sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ayaa u muuqda in markaasi sidii la rabo laga yeelan karo misana markaasi way kasto loo baahan yahayba loo adeegsan karo taasi oona ah waqtigan la joogay in markaasi u muuqato in markaasi aqliyada bini'aadamkaba aysan qaadan kareynin wixii waqtigan ka dambeeya tani ayaana sabab u ah in isku hadal ay ku noqdaan labada maamul waa Puntland iyo Jubbaland kadib qalifnimadooda hal eray oo ay ka wada sinaayeen oo ahaa ee markaasi isla wada madal ka wada dhacay taasi oona ah waxaan diyaar u nahay inaan dawladda dhexe Soomaaliya wada hadal la galno waqtigan miyaa la jooga xilligii hadalladaasi oo kale ka soo bixi lahaayeen maamulada dalka misana dawladda oo loo baahan yahay waqtigan inay dhageysato wada hadalka Axmed Madoobe uu ku dhawaaqay iyo wada hadalkii uu ku dhawaaqay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni maxayse markii ugu horeysay ee hawshu ay wadeen ay u dhihi kari waayeen waxaan diyaar u nahay wada hadal oo markaasi dawladda ayaan diyaar u nahay inaan miiska wada tagno inta aynan qabsanin doorashooyinkooda ka hor aragtidaada qaybta hoose faalada commentiga ayaad inagu wadaagi kartaa sina faafi muuqaalka oo share garee meel dheer nala gaarsi like-na saaxiibo fara badan ayay ina tusaysaa bogana haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro waxaan ka dalbanaynaa
inaad markaasi ka mid noqoto oo soo follow gareedo saaxiibadeena sida maalinlaha ee wararkeena halkan ugula socdo.